adigoo naag ogaadeen maxaad ka qaadi kartaa lacagtu isagu ka qaado dirto lacagtu isagu ka qaaday waxa weeyaan 4 waxa weeyaan ayaan la xuseen roob la dhaahdaa waa nin saxaaqa Cabdullaahi saxaaqa weeyaan reeniyo Hargeysa weeyaan walaalo sawirkiisana waan hayaa facebookiisa lambarkiisa waan hayaa imika waxa la iga haystaa waxay arkeen maanta Hargeysa ii joogin aan gabadhahay waxba ka qaadi karin bay igu kibrayaan moogti iga ma haysteen ya aniga jibraab korbay dhalay waa reerkay dhalay waan u tagay xataa iyada waxaan ku dhiinantaada ninkeegii bay lacagtiiga dhacay la hadal habar roo inaga ehelkii jaarkeed ogeedinantaaduna waxay iibinaysay waxay igu tirinaha nagu waalan arado ninkii dee lacagta ka dhacay reerkoogii magaaladu lu yaalay oo doono oo la ii xoog sheeganayaa awlaad yarar baan haystaa anu walaal melihi hooyada aabahay walaalmay dhalin halkayna ma dhex joogo markaa ciilkay hay oohintu markaa waa sidaas walaal lacagta waxaan ka diray talasumteena suuqa hoosaan ka diray taaj baan ka diray wakaa walaal waa lacag cadeynteedii wadata markaa lacag cadeynteedii wadataha laakiin caaqilkoogii baan la xidhiidhay dhin isagana habarwadaagiina ah caaqilkoogiina ah kadibna de waa dad walaalo ah weeyaan waan la iide koley waa la ii wada heshiiyaan sidii marka caaqilkii aniga waxba dee waxaan ku qancay ma odhanin wuxuu igu yidhi maaday xidhi karaa maxaad iga qaadi kartaa adigoo ayaani waxay ka qaadi kara buu igu yidhi daawadayaal waxaan ku suganay mid ka mid ah xaafadaha magaalada Hargeysa gaar ahaan xaafadda Isha Boorama barbarkayga wax fadhida filsan sida ila wadaagtay hadda xogteeda waa gabadh muddo dheer Somaliland degnayd ehel ah reer Somaliland ah caruurteedu reer Somaliland waxay sheegtay dulmi inuu ku dhacay hanti ay lahayd iyo lacag hantiyo meel dhul ay iibisay iyo meherad ay iibisay in laga dhacay bal qaabkii looga dhacay iyo cidda ka dhacday iyo filcilinta ay la kulantay ayaan ka waraysan doonaa soo dhawow filsan say wax kugu dhacay wariye waan dhowahay anigu waxaan ku dhashay magaalada Hargeysa aan ku koray ku barbaaray intaa ku leekaaday waxay igu dhacay dulmi iyo khiyaamo waa la igu tacadiyay waxa jirtay gabadh aan jaarnahay aan saaxiib nahay ayaa anigoo family problem haysto iska rafaadsan oo nin aan caruur dhalay eriyanayo magaalada Hargeysa kolba koonay iga saarayo oo iska dawaqsan ayaabaan lacag iga khiyaamaysay oon aaminon ehel mooday oon siriyada kuu gargaarayso kuu miciinaysa gabadhu Turkiga joogtay dabadeetana way ka timiday Hargeysay timiday anigoo iska dawaqsanoo guriga xataa aan ku nasanin oo habeenba xaafad seexdo oo cabsi darteed ninkaas oo dilay darteed uga meeraysanay gurigayga ayay ii timiday waxay igu tiri walaalay in fiican tahay ama fiicanay asxaab baan nahay 15 sano asxaab ahayn ehel baan nahay jaar baan nahay waxay igu tiri walaalo maxaa ku helo dawaayahaygan uga waramay waayahaygan uu ila socdo dabcan telefoon baan ka wada hadli jirnay kadibna waxaan ku dalka Turkiga ka timiday bal ka waran maxaa lagu hayaa ma ku noolaan karaa sidee noloshiisu tahay haaba igu tiri ku noolaan kartaa ninkayga guryaha iibiya oo maxay ahayd dilaala ku iibinaya wadankii kala garanaya markaa aan ku gargaarno ku garab istaagaynaa markaas sidaas aan ku aaminay waxaan ku walaal ma doonayn inaan cirurteeda kala daadaadiyo aan ka tago meel kale oo Hargeysa uga baxana ma garanayo Hargeysa ku dhashan inta ku aqleystan ku leekaaday marka de Soomaaliyada kalena way iska wada rafaad badan tahay oo haddaan Muqdisho tagi lahaa waan de amnigaygu ma fiicna xagan iyo meel kale oo taga ma garanayo waxaan doonayaa inaad guri iibisaan maxaad ka qabtaan dabeetana waxay ku tirninkayga ku iibinaya anaga aamin anaga walaalo kuwa haddaan garab iyo eheltoon Hargeysa kule anaga ehel ku noqonayna ninkeygii bay ila soo hadashiisay ninkeygii bay ila hadlay wuxuu yiri walaal ana ku iibinaya guriga ana walaal kuwa ana ku hiilinaya garab ku siinaya kadibna waxa dhacday lacagtii baan u diray waan aaminay lacagtii markaan u diray wuxuu yiri walaal soo sameeyso tasdiiqin warqad la dhahdo ka soo sameysay Hargeysaan tagay maxkamadan tagay tasdiiqintii baan soo sameeyay waan diray markaan diray waxa la igu yiri warqada Hargeysa ma shaqeynayso maadaama inaan lahayn dawlad la aqoonsan yahay kuma shaqeynayso kadibna warqad kale igu yiri garoowe tago doon garoowaan tagay garoowan warqad ka soo sameeyay tiiban dhowr cisho ku maqnaa lacag badan bay iga baxday ilaa $500 tii Hargeysana ilaa $400 bay iga baxay tii kalena markaan diray haddana wuxuu igu yiri ma shaqeynayso Muqdisho qabo oo koobigayga khafiifa biigudo way diiday safaaradii Muqdishaan tigi diyaarad baan raacay waxaan ku dhawaan soo sameystay tasdiiqintii waraaqihii oo dhan waan u diray muddo bilaan Muqdisho joogay lacag ilaa $100 gaaraysa iga baxday joogisteedii iyo kolba wasaarad tagisteedii iyo waraaqadii aan la meeraysanay
dabadeetana warqadii baan u diray warqadii markaan u diray buu yiri safaaradii baan geeyay iska sug walaalo intay soo safaaradii noo soo jawaabiso haye baan ku waan sugayay muddo 3 bilood buu igu lahaa maalin kasta safaaradii may soo jawaabin maanta may soo jawaabin bari may soo jawaabin waan iska samreeyay warqadii way soo baxday maalintii igu yiri wuxuu warqadii walaal way soo baxday gurigii waan ku iibinayaa lacagtaadina aniga haya lacagta mar hore aan u diray ma ogtahay caruurta iskuulka ka saar gabadha ay la soo hadashay wuxuu ku yiri ayaan la caruurta iskuulka ka saar soo diyaar garoobo soo aan babaxa ciyaalkii baan iskuulkii ka saaray waxaan ku waan diyaar garoobay sidaan u sugayay 2 cisho 3 cisho sugayay buu igu yiri walaal lacagtii Turkiga jabtay lacagtii Turkiga kacday dollarkii uu jabay waxa ma goynayso lacagtaadii waxa ma goynayso ha marka maxaa yeelay waan yara sugaynaa buu yiri xogay waxa laga yaabaa in wiiga dambe kacdo haye baan ku yiri waan iska sugay marka aan gurigan xataa aan deganahay iminka deganadi kala hadlay waan ka qaxay waxaan u qaxay meel kale oo culayskii bay igu sii siyaaday oo ninkii markii hore magaalada ereyanay baa ogaaday inaan meel u baxayo caruurta rabay inuu iga qaato waan rafaadsanaa moogtahay haye baan idhi waan sugayay sidii waxaan u sugaba adu 3 bilood bay igu qaadatay oo kale mise 4 bilood badan ka badnaynba ay igu qaadatay intuu igu lahaa lacagtii way jaban tahay maxaa yeelay markii dambe go'aan baan qaatay waxaan ku walaal hadii lacagtii jabtay oo waxba ii goynayn anu waan silicsan oo rafaadsanay caruurteedii waxbarashada waan ka saaray magaalooyinka kale Soomaalida wixii doonay kala kulmaan ayaan iska degay lacagteedii soo dir sida maalintan ku hori ayuu ruwaayay waan ku soo dirayaa hadii la yiraahdo safar baan baxayaa isug wiigu marka safar baan baxayaa isug 10 cisho kadib waan ku soo diray haye baan ku hori safar buu baxay safarkii uu baxeen maxay hayday meel uu baxeen ma garanayo inuu soo sheegin markii baaba igu wardambeysayba telefoonkiisa uu dansaday gabadhii baan la hadlay nabal waran ma soo noqday ayaan la mu soo noqon bay igu tiri maxaa ku dhacay mooy maalintii 10aad bay la soo hadashay waxay igu tiri ayaan uu xiran maxaa xiray mooyaane meel buu igala soo hadlo wuxuu igu yiri waan xiranahay haye marka maalad meel oo tixraacda jirin ma jirto tibal telefoonka ninkii ku ceeliday waxay igu tiri ninkii afturka buu igula hadlay markuu iga qabtay telefoonka ma hayo wakawarku waan iska simray waxaan sir qofkii shalay wanaaga kuugu shaqeynayay maanta hadii la xirade inaad qaylo bilowdo adoo baahan maanta de waxaagi u baahan haddana iska aamusay aduu muddo 6 bilood bay igu lahayd ninkii raqiyo ruux midna ma hayo markaan la hadlaba ninkii ka waran wallahi inaan ka sheekeyn karin isaga weego waxaan ku meel ku dhintaa la soo diray way iska oohisaa aniguna run baan moodaa waxaan saraada iska aamusa inuu gumeed ha noqonin iska waan sugay 6 bilood kadib bay igu tiri walaalkii baa yimiday ninka walaalkii baa yimid maxay hayday safaaradii uu tagay Soomaaliya wuxuu inankayga hal loo baafiyo waa la baafinayaa baasaboorkii uu soo diri jiray wixii maad haysaa bal ii soo dir aduu ninkii baa la baafiyay waxa igu tiri meel baa laga helay meel buu ku xiray maxaa lagu qabtay tahriibiyo tahriibnina lagu qabtay bay igu tiri lambar tahriibi ayaa laga helay telefoonkiisa Turkiga ku raadinayay markii uu xiray ninkii maxay xalaan ninkii uu iska noqday Indonesia Ahmed baa la dhahdaa Ahmed Xuseen Rooble uu noqdo wadankii ka yimid ku noqdo Jarmal buu joogaa bay ku tiri saas baan jeclahay inay ku tiri ayuu ku noqdo waka marka adiga yaa meesha kugu biili inay walaalihiin kala baahiyihiin oo Mareykanka jooga ayaa biilka ii soo dira reerkoogii ma la wadaagtay waxay ku tiri marka reerka lama wadaagin inanka ay kala baahdihiin baan la wadaagay markii dambana inankana ogaaday hooyadii baa xanuunsan soo laga qarinayaa looma sheegayo waka marka waxa jiray inaan ay walaalayihiin oo magaalada joogo Khalid Xuseen Rooble la yiraahdo ayaa maalmihii uu lahaa wax baan ku iibinayaa safaaradan Hargeysa uu ku raaco inantaas baan wuxuu iibinayaa Hargeysa safaaradda u raaco is wada hadal oo lambarkiisa soo siiyay anigana lambarkaygu siiyay isaga soo qaraaco ma inantii waa la sheegay ha wala safaaradda aniga tagayay waraqaha aad sheegayso ii soo dir lacag $120 ii soo dir waan u diray marka inankooguna uu loo ogaa sheekada markii hore bilowgiiba wuxuu loo ogaa inaan iibinayo hawsha uu la socday waxa dhacday inankii baan markaa anigu la xidhiidhaa waxaan ku raadaa bal waran walaal inankii ma la soo daayay maybe uu raada been bii sheeg jiray maybe walaal uu xiran yahay waliyo halkii buu ku xiran yahay dawli ayaan lacagtina imu soo dirin walaal waxbana kama haye bal gurina waan ku iibinayaa bii gulahay bal ii walaal ii wuxuu ku raada wallahi ninka war kama hayno adu sheekadu waxay socotay waxaan siriiska aamus iska suginka inta la soo daynay waa xiran yahay qof xiran ku sii tacadiin adiguna shalay buu wanaag buu ku sameeyay maantana wanaagii uun kuwad showninku ma xidhnaba iska jooga 2000 bay ahayd sheekadu 2013 bishii 9aadna waan ogaaday inaan xidhnayn oo banaanka joogo fahmaysaa
waa la isoo sheegay markii la isoo sheegeen kuuri naaninkaaga soo ka banaanka joogeen aanu xidhnayn waxaygu waan u baahanahay walaalo waxaan ku caruur yar baan haystaa aabahood markii hore igu xumaa oo is-ereryan jiray ereryanayay imikii haatana waa xanuunsada maskaxiin weeyaan isku dhuftay marka waan u baahanahay waxaygaan mana shaqaystay waxaygiisii iga soo qaad adiisii weydeenad waxaan ku beento dhan xaas igu sheegayso isakay blockay block bay igu jiiday block markii igu jiiday inankoogii la hadlay inankoogii baan ku war waadigi ogaa inankiina waayihiisa waadigi ogaa inuu wixii iibinayo walaal inankiina wuu khiyaameeyay adiguna waad ogeydin uu banaanka joogo wallahi inaan warhayn war kama hayo anagu shaqo ku midin soo gabadha igu tiri inankayagii baa u yimid oo lawyer u qabtay sidaan isku ogeyn dad walaalaho iyo aabbaha baan is ogeyn wixii guri ma ogin shaqana ku milihin ninka warkiisana ma hayo telefoonkiisana ma hayo adu sheekadii markaan soo ogaaday ninkii in la soo daayay aan ku ninkii banaan ku joogay de malaha waxaan ku wax kala adiga faanteen waxaygiisii adigaaba ogaayo adaan ku xidhanayaa sheekada way wad loo ogid ninkiina wixii ugu dhinamaaday xiri kara maxaad iga qaadi kartaa adigoo ayaan wixii ka qaadi kara wiigudi ma garanaysaa ii soo handaday waxaan ku maxkamadda Hargeysa bantigaan ku soo xidhay wixii gudi adigoo fahamsa deetana clip baan iska duubay TikTok taan soo dhigay ana ooyay adigoo naag ogaadeen maxaad iga qaadi kartaa هي حقائق إن شاء الله هي كتبنا كليب كان تيك توك تصوري جاي أركان وقت يدت بدن بالهذا كوري ملامات قبل وحيك إسكاسي صار ديتنا ما إلى صحري وحيلا صحري ده قبل يقول اللي هنا هي باقي لهذا هي باقي حسين ربلا لهذا يسوى علي وحي قلت لك محاد عاي ولا لنا قاد بيقول تيك توك تا وحنا رير مقعله ولا عقله وحاجة كوسين إننا نقاد فهمسه واي بانكوري أنا وحيجي بابانو باهن هاي مرة بانكوري المري هلا يقول أركب أركب حيجي هذا السنة سنة الحمد لله هاي بيقول هذين نكينو إلى سهل كي العكتي كقعتينو إلى سهل ويقول سنة كعسوب أنت كهذا يسوب وحنقول هذه كم أمينة مرة هرات بيني شكت هذا خيانته حنقولها أمينة ويقول واحد يقول أمينة markii hore soo imaadaaminahay iminkan ilaahay dartii ugu aamin saan ku ilaahay wax ka weyn ma jiro inta saddexdii sano baan samreeyay iminkan waan iska samray inta sanadka ka hadhay bishii 9aad 2003 20kii buu ila soo hadlay sanadkii ma ka dhamaado lacagtaadu filsanay imisay ahayd imise sanaane ka maqanta lacagtayga baabaaday horta waxa weeyaan 30,000 way noqonaysaa ogtay ee lugooyada ninkayga ka baabaaday lacagtu isagu ka qaado dirto lacagtu isaga ka qaaday waxa weeyaan 4,000 imise ka maqantay lacagtaadu 3 sanadood 2020kii baan u diray warqadda waan haya aan ku diray lacagta filsanay qaabka lacagta u dirtay ciidaad marisay miyaanay jirin makhraatiyo iyo makhraatiga inantan inala fadhidaaba ka makhraatiyo ila socotay gabadhiisuna way ila socotay maxay ahayd lacagta waxaan ka diray talasumteena suuqa hoosaan ka diray taaj baan ka diray wakaa walaal waa lacag cadeynteedii wadata markaa lacag cadeynteedii